waxaan la joogaa Ustaad Yacquub oo ka qayb galay mu'tamarka caalamiga ah ee looga hadlayay arrimaha Qudus iyo Aqsa sidii loogu gargaari lahaa. Ustaad Yacquub sideed u aragtaa shucuurtaada waase inaad ka qayb gasho mu'tamar weyn oo bulshada islaamka isugu imaaday sidii Qudus loogu gargaari lahaa. Soo dhaw. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفرحات إيتهاي وفرحات أدوين عد كستوك سوق بقشينا فرحات داس سببتو وحي ماشي وحاسكو إمادين داد آد أفر بدن ووذا هدلايان ووذا السعودان كوذا تيرانو تيرانيا كموجينايو إن أما مسؤولية بكموجينايو سيدي أي قدس أقرب استاقي لهايان هي قضية القدس سيدي أوجه لهايان ولا لهم نقصي فهنسين لهايان لونا قرب استاقي لها ريركاس أن ولا لها أن ولا لها كنا هي إسلام قبل كل شيء وقضية آد فرحات أولى رنتي إله أنا خاص أهم هذا وين هذا وما سنتهاي أستاذ يعقوب بالشيء الصومالي وحي صفكور كجرتي وجرجارت قضايات كمسلمين waxaad u moodaa wacyiga inuu hoos u dhacay sidee wacyiga kor loogu qaadi karaa oo qadyadan loogu tawjihin karaa iyadoo ah qadyad aan wada ognahay inay ummadda Soomaaliyeed midaynayso حقيقة شعب الصومالي وشعب لجرن وشعب إسجرنايو أما لو جرنايو إن أوغلانين وسأوغلانين إن لدوليستو إن الاستعمار صدو إن محوها لليدو قف كلامنا أن أوغلين تا أيدا لأجل هذا دتكيني هروح يديه هجرين أما صومالي ذا قفك أي أركان إن بني آدم نمدي يوكفوا يهاي وحيدا هايان كان ويهودي بو وعدو تنمدي سوا يهودي بيديه هجرين يدا هان صومالي ذا قد يدان شعب الصومال آد بيميل فوق أغلى جوكتا وحين أصيب بهين إن وحبدن لوسي شيغو حوادث تقار دعديالك قار markay ka dhacaan Masjid al-Aqsa iyo Bayt al-Maqdis iyo dhulkaasi muxuu muslimiinta Falastiin lagu guumeysanayo way ka dhidiyaan mudaharaad badan ay ka muujiyaan meel kasto ay joogaanba ma kuwa Yurub joogo ama kuwa jooga muxuu wadanka gudihiisa ama Sharqi Afriqiya iyo baladkan hadda aan kan midbo waa laga dhidiyaa xadiisadii hadda u dambeysay mudaharaad badan baa laga muujiyay wadanka Kenya oo muslimiinta oo hatta dad aan muslimiin ahayn ay la garab istaageen walaalaheen marka waa qadiyad aad muhiim u ah daruurina ah dadka muslimiinta ah ama Soomaalida inay arintan ay aad door ugu lahaadaan arin looga baahan yahay aad baa u mahadsan Ustaad Yacquub kulankan qiimaha badan waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan wacyiga socda iyo itijaahad ka socda inay qayb ka noqdaan oo doorkooda la imaadaan waa ku mahad celinayna Ustaad. Thank you.